1987 kuna dhashay koonfurta magaalada Rosario ee dalkaasi Argentiin. waxaa iska dhalay Jorge Messi oo ahaa shaqaale mid ka mid ah warshadaha dalkaasi iyo Celia Maria oo ahayd shaqaale nadaafadeed. qoyskiisu asal ahaan waxay ka soo jeedaan dalka Talyaaniga. awowgii waxa uu soo haajiray dalka Argentiin sanadkii 1883. waxa uu leeyahay laba walaal oo ka weyn, waxayna kala yihiin Rodrigo iyo Matias. sidoo kale waxaa la dhalatay gabar lagu magacaabo Maria Sol. da'da 5 jirka ayuu ku bilaabay inuu ciyaaro naadiga Grandoli oo ahayd maxalli aabihii tababari jiray. 11 jirkiisii ayaa laga helay cudurka nusqaanka hormoonaadka. naadiga River Plate ayaa doontay inay qaataan Messi, laakiin waxay maamulkoodu awoodi waayeen inay bixiyaan lacagta daawada Messi oo qiimo ahaan gaaraysay $900 bil kasta. Messi wuxuu indhihiisa soo jiitay maamulaha Barcelona oo maqlay xirfadda mucjisada ay ku jirta wiilkan. qoyska Messi waxay heleen fursad, waxaana waalidkii ay la soo aadeen dalkaasi Spain, halkaasina lagu soo bandhigay mawaahibka ninkan uu leeyahay. iyadoo taasi laga eegayo, Barcelona waxay ogolaatay inay bixiso qarashka caafimaadka Lionel Messi. qoyskiisuna waxay u soo guureen dalkaasi Spain. Messi wuxuu halkaasi ka bilaabay u ciyaarista daayirada Barcelona. markii ugu horeysay wuxuu ka soo muuqday sanadkii 2004, waxaana uu burburiyey rikoor weyn oo u yaalay kooxdiisa oo ahaa laacibkii ugu yaraa ee horyaalka gool ka dhaliya, waana lagu abaalmariyey. balse abaalmarinta ugu weyn isagu waxa uu u arkayay in Barcelona uu la qaaday horyaalka iyo weliba koobab kale xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay. xilli ciyaareedkii 2005-2006 wuxuu si rasmi ah ugu biiray shaxda koowaad ee naadiga Barcelona. xiddigan El Clasico wuxuu ka dhaliyay hat-trick. ciyaartaasina waxay noqotay mid si rasmi ah loogu iclaamiyey dhalashada xiddig cusub oo sannado badan ka ifi doona samada kubadda cagta, isagoo halkaasi ka sii watay in ka badan 10 sano oo xiriir ah qaadista koobab kala duwan iyo abaalmarino shakhsi ah oo u urursaday si aan